بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. mudanayaal madawooyin Soomaalida fiirsanaysa munaasabadan meel kasta ee adduunka ka joogto waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. mudanayaal madawooyin magacayga waa Dr. Abuukar Aadan Cadde. waxaan ahay takhtar caafimaad oo leh xirfad caalami ah. waxaan leeyahay xarun caafimaad oo guuleysatay oo ku taal waqooyiga Ameerika. waxaan ahay aabe leh qoys wanaagsan oo la jecel yahay. maanta hortiina waxaan u imid inaan idiin caddeeyo inaan ahay musharax madaxweyne u taagan hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya. halkaan isuma soo taagin inaan magac ama hanti ka sameeyo madaxtinimada Soomaaliya. waxaan u imid inaan ka qayb qaato samata bixinta dadkeena iyo dalkeena. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya waa waddan 30 sano ku soo jiray xasilooni darro iyo jahawareer siyaasadeed. waxaan soo marnay dagaal sokeeye dowlado ku meel gaar ah iyo kuwa aan ku meel gaar ahayn. waxaa la yaab leh in Soomaaliya muddo dheer degi la adahay annagoo ah dad isku diin, isku dhaqan iyo isku isra. haddii alla ii idmo aan madaxweyne ka noqdo waddanka, waxaan ka shaqayn doonaa sugidda amniga, annagoo xoojin doona ciidamada militariga, booliiska, sirdoonka si ay nooga difaacaan cadowga gudaha iyo kan dibadda. ciidamadeenu waa inay ka koobnaadaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan, waana inay ka yimaadaan gobol kasta, waa inay isku dhafan yihiin, ay hal hoggaan oo midaysan leeyihiin. waxaan kaloo ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah inay ka qabsoonto waddanka. saa u ogsoon tihiin, Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokeeye, shaki badan dhexdooda soo dhexgelisay. haddii aan madax ka noqdo waddanka, waxaan ku dadaali doonaa inaan sameyno dib u heshiisiin dhab ah. waxaan dhammaystiri doonaa dastuurka qabyada ah sida ugu dhaqsiyada badan. waxaan hirgelin doonaa ku dhaqankiisa si loo gaaro dowlad wanaag. qodob muhiima oo loo baahan yahay inaan dowladdeeda ka shaqaysto waa midnimada Soomaaliya. waxaan la furi doonaa walaalaheen Soomaalida waqooyi wada hadal daacad ku dhisan iyo walaalnimo, si dalkeenna loo xasiliyo, nabad waarta iyo midnimo loo gaaro. waxaan la furi doonaa wada hadal cid kastoo diyaar u ah. xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadana waan xoojin doonaa. waxaan dadaal weyn gelin doonaa in dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada si daacad u wada shaqeeyaan, ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danaha gaarka ah. xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa xakameyn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. siyaasadda dibadda, waxaan xiriir xooggan la sameyn doonaa dowladaha deriska. waxaana la yeelan doonaa deris wanaag, nabad ku wada noolaansho, faragelin la-aan arrimaha gudaha. haddii alla idmo, waxaan gaarsiin doonaa waddanka doorasho qof iyo cod ah oo aan shaqadeeda la bilaabi doono 100 maalmood ugu horeysa xukuumaddeyda. gunaanid, waxaan Soomaali leeyahay, Soomaali ha noolaato.